bismillaahi raxmaani raxiim mahad idaylkeed ilaah baana naxariis iyo nabadgelyo nabigeena suubane maxamed ah korkiisa ahaato soomaaliyey meel walbood ka joogtaan geygeenna iyo daafa adduunka waa idin salaamay waa xasan jaamac waxaanu sii wadaynaa haddii uu ilaahay yidhaahdo gabayadii sayidka geeraaradii iyo maasooyinkiisii caanka ahaa waxaan maanta soo qaadanaynaa gabayga la idhahdo magaciisa daawad waxa uu ku yimiday sida uu wariya uu jaamac cumar ciise oo ahaa ninkii u tafaxaytay soo ururinta iyo soo nooleynta taariikhda daraawiishta iyo soo ururinta iyo baadigoobka maasooyinka sayidka gabaygan waxa uu ku yimiday ismaaciil mire oo ahaa maanduulihii sayidka ama daraawiishta guud ahaan ayaa sayidku waxa u diray ayl oo ay ku taalo markaa qalcaddii caanka ahayd ee daawad waxaana uu ugu diray inuu soo indhaindheeyo xaalka ay ku sugan tahay qalcaddaasi iyo sida ciidanka joogay uu heegan u yahay ismaaciil meeshii durba waxa uu ka arkay habacsanaan ninkii dhawre oo markaas madaxa ka ahaa daawad ayaa waxa uu is yidhi ismaaciil marka uu warka kaa geeyo bilow sayidku halkaa kugu xujiyey dabadeedna gabay sasabasho oo kale ah ayuu u dhiibay ismaaciil uu yidhi sayidka iga gaadhsii waxaana uu yidhi dhawre ismaaciil adaa daa'inka diinta laayicine markuu waagu daalaco adaa dawga sii maray dacwadan ku faro iga geed daahirkii weliga ha daayicin walaalow adaa khayrku kuu duxiye daraawiishta qaybsii intaad daacad ugu sheegto duco waalid waad qabi jirtee delidhac ha u yeelin daar nimaan lahayn baa degniin dani ka haysaaye darajaale aabbahay hadduu daawad nagu jaaday dooyada intaan galay miyaan libin ku daanshooday hadduu dooro weynow kufrigu duulan soo bixiyo oo daarta ayl yimid haddaan haad ku dulufaaqin alla ilahe afkaan soo dirsaday waa daleel madhan dheh ismaaciil markii uu tegay sayidkii waxa uu uga warramay wixii uu soo arkay oo habacsanaan ahaa oo daryeel la-aan ahaa dabadeedna waxa uu guddoonsiiyey gabaygii dhawre uu soo faray sayidku markaas isaga oo farriin u diraya dhawre waxa uu yidhi dhawrow dabuubtii aad tidhi ducaa qab ii keenye darwiishkiina sheegyo maqarin dacaawadaadiiye hadalkii uu ka soo daminay dirka ka caddeeye dadku maqaal dibnaha inaad ka tidhi galcad baan diliye anna waan ku diirsaday ilaah daraajo siiyow maandhow dadaal yaana noqon dad ufbeen badane hadduu doora weynow kufrigu dullan soo bixiyo oo uu soo dareersho wixii diriya daaroodba maandhow dan haw gelin fula si dabayshadae dogoobta iyo xaabadana guro duquuskanu dhaanso durduurkana ha xaalaysanine daraarso laaskaaga duunyadana dayr adag u dhigo yaanay ka didine maandhow ninkii dowlada ku dagaalamaye kuwii dumiyey ilig waa waxaan daahir loo dhaline maandhow daawadyu inaga gelin cadow ku soo doontay maandhow darbaanku dhisaye dibadda haw boodin dabka hayska lumin yuu iblays dawyo ka ridine daartana ha bixin daayinka duni intaad joogto ilahay naxariis janna ha siiyo qabrigana ha u qaboojiyo nebiyadiina hala xidhiidhiyo sayid maxamed cabdulla xasan aamiin